Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa in salaam dhammaan walaalahay Soomaaliyeed meel kastoo joogtaan. Waa mar kale walaashin xabsi shire kusoo dhawaada channelkayga hooyada maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo ilmaha sanadka ilaa 2 sano ee ka gaaraan isbedel ku imaado jir ahaan iyo maskax ahaan iyo wax waalidka laga rabo. Marka koowaad ilmaha sanad markay soo gaaraan waa taa ka soo hadalnay sanad markii uu u buuxsamo kadib wixii isbedel ku dhacaya waa waxaan ka hadlaynaa maanta. Waxaa la rabaa waqtigan ilmaha markay soo gaaraan inay socon karaan badankooda. Ilmo waxaa jira socodka ka daaho taasna dhib ma lahan, cunug walba waqtiyuu leeyahay, laakiin hooyada iyo aabbaha waxaan kula talinayaa insha Allah inay dhiirigeliyaan cunuga, socodsiiyaan, maxaa la dhahaa gacmaha laga qabto, la dhiirigeliyo, loo sacbiyo markuu istaago, oo maxaa la dhahaa meelaha uu ku socon karin oo dhibka laga leexiyo oo meel nadiif ah uu ku socon karo cunuga isku tijaabin karo uusan ka cabsanin in la dhigo. Waxaa kaloo cunuga waqtiyadan uu qaban karo ka mid ah inuu tallaabooyin qaadi karo asagoo la caawinin, maxaa la dhahaa jaranjarta inuu gurguurish ku kori karo, haddii oo music ama wax uu maqlo inuu ciyaari karo, kursiga inuu kori karo, inuu banooniga darbeyn karo ama uu tuuri karo, cunuga inuu waqtigan asaga cunto cuni karo, haddii aa weel wax ugu soo shubtid uu afka gashgashan karo uu cuni karo. Maxaa la dhahaa haddii aa qalin ama kaloraati ama waxa u dhiibtid uu buug ku xariiqi karo, buugga inuu gadgadin karo beejajkiisa, maxaa la dhahaa inuu cabitaanka markaa siisid ama caanaha aa siisid oo asaga kaligiisa cabi karo, maxaa la dhahaa inuu qaandada isticmaali karo ama farkeetaha hadaa u dhiibtid. Intaas waxa waaye isbedelka oo laga rabo physically cunuga inuu ku imaado jir ahaan. Markii dhaqanka hab dhaqanka dadka loo yimaadane cunuga waxaa la rabaa inuu ilmaha kale la ciyaari karo, maxaa la dhahaa uu yahay cunug oo yacni nashaad leh oo energetic ah oo ilmaha kale la ciyaari karo, maxaa la dhahaa dhaqdhaqaaqiisa uu badan yahay. Ilmaha xilligan waa xilliga ugu dhaqdhaqaaqka badan yihiin, mar hadday socod bartaan ma fariisanayaan, ma fahanti ma daalaan xilligan oo kale marba meelay galayaan. Isbedelka xagga maskax ahaaneed ku imaadana waxaa ka mid ah cunuga inuu hooyadiisa markay ka tagayso uu dareemo oohin ama cabsi ama uusan rabin inaad ka tagtid aabihiis ama hooyadiis markay baxayaan uu ooyo. Maxaa la dhahaa haddii uu xanaaqo inuu kugu soo ordo oo laabta inaad gelisid uu rabo si kale tugsa sameynin. Maxaa la dhahaa cunuga waxaa kaloo jirto inuu dhaqso xanaaqaayo, ilmaha waqtigan aad xanaaqooda u dhow yahay oo oohintoodana u badan tahay. Marka maxaa la rabaa waxyaabaha kaleeto isbedel ku imaanaya maxaa ka mid ah inuu dadka waaweyn uu dhaajinayo, ma fahantay cunuga yacni erayadaada waxaa qabanaysid inuu yacni ku soo celinayo asagana uu kaa daba sameynayo uu ku koobi gareynayo. Maxaa la dhahaa haddii oo shay aa weydiisid waxaas maxaa waaye aad tirahdid ama iskoobaha aaw ama xaaqin aaw ama wax aa weydiisid uu farta ku fiiqi karo uu yaqaano, inuu magaciisa uu garan karo, inuu dadka agtiisa joogna magacyadooda garan karo. Waxaa kaloo la rabaa also jirkiisa qaybo ka mid ah inuu garan karo, haddii aa u tilmaamtid uu gacanta kuu saari karo. Marka ilmaha waqtigan oo kale waa waqtiga yacni ugu yacni u xiiseeyaan inay meel kasta galaan, wax walba bartaan, wax walba soo qabsadaan, wax walba daadiyaan, wax walba haleeyaan, biyaha ay jecel yihiin, magaciisa inuu isku wici karo xataa marka qaar ilmaha hadalka xataa way usoo kala hormaraan soo maahan, inuu raadsan karo alaabeydiisa oo ka dhuntay wixii dhulka ku dhaco uu soo qabsan karo. Luqadda markii loo yimaadana language markii loo yimaadana waxaa la rabaa cunuga markii wax aa u sheegtid inuu fahmi karo waxaas soo qabo haddaa dhahdid ama fariiso kac ama istaag ama jiifo wixii aa dhahdid inuu fahmi karo, asaga inuu dhihi karo caanaa rabaa ama biyaa rabaa ilaa 2 sano intaas wuu dhihi karaa. Marka waalidka maxaa laga rabaa inay ku caawiyaan ilmahooda, inay wax u akhriyaan, inay la sheekaystaan, inay banaanka geeyaan, inaa wax walba u tilmaamtid aad tustid. Haddii uu isku dayayo inuu wax kuu sheego oo aadan fahmaynin xataa marba wax ku day waxaa leedahay kaas ma rabtaa kan ma rabtaa si oo yacni ugu fududaato cunugan inuu fahmo wixii uu rabe. Hadhow markii wixii uu rabe asiga qalbiga wuu ka yaqaanaa laakiin waa dhahaan inuu kuu soo saari karin laga yaabaa. Markii aa u sheegtid midka uu rabo inuu ku dhagaa laga yaabaa, ma fahantay. Marka waxaa la rabaa cunuga in la caawiyo oo maxaa la dhahaa loo sheekeeyo. Teeda kale xilligan waa xilliga qaska ay badan yihiin, hooyadii waxaa laga rabaa inay guriga aad uga taxadirto, korontada ka ilaaliso, mindiyaha maxaa la dhahaa bahashan maqasta waxaas oo dhan laga fogeeyo, waxyaabaha kareemaadka iyo daawooyinka waxaas meel fog laga saaro because way daadinayaan.
waxaa kaloo muhiim ah biyaha inta laga fogeeyo because ilmaha aad ay biyaha u jecel yihiin waqtigan oo kale mana yaqaanin dhibaatada uga imaan karto dee biyo meel ku daataa camal wuu ku dhici karaa wuu ku jabi karaa musqusha furan in laga tegin baaldi biyo ku jiro ama baaf biyo ku jiro banaanka looga tegin because waxay xaalis u yihiin inay ku dhacaan waxaa lalahay ayagoo ku ciyaar isdhahayaan oo dhibaato ay uga timaado ama xataa ay cabaan ilmaha markin oo biyaha wasaqda xataa ma yaqaaniin oon hadduu qabto way iska cabaayaan waxaasoo dhan in laga fogeeyo muhiim ah waxaa kaloo muhiim ah ilmaha xilligan waa xilliga ay bartaan inay wax fiirsadaan cunuga ilaa sanad iyo bar oo kasoo gaaro fiirsiga badan ma u fiicno ilaa sanad iyo bar oo kasoo gaaro hooyada inay u sugtaa la rabaa oo yacni oo fiirsashada daawashada tv-ga badan ama mobileka laga ilaaliyo because xilliga luqadiisa ay soo dhismayso waaye haddii waqtigaas taleefon aa ku mashquulisid oo ha ka aamusnaa darteed aa u siinaysid hadhow way ku adkaanaysaa cunug luqada inuu barto marka mobileka in laga yareeyo haddii sanad iyo bar oo gaarana waxyar limited aa siisid oo fiirsan karo oo waxyaabaha ilmaha loogu talagalay waxaa kaloo jiro xilligan oo kale ilmaha cuntada weli waxaa laga yaabaa cunugaaga weli naaska inuu nuugaayo because ilmaha waxaa loogu talagalay ilaa 2 sano in naaska la siiyo hadduu weli naaskuu nuugaayo cunto yarna uu kaa qaadanaya okay waaye just waxaa muhiim ah cunto isku dheelitiran inaad siisid fruitska siisid khudaarta siisid wax walba cunto ay ka kooban tahay oo protein uu ka helaayo calcium uu ka helaayo vitamins uu ka helaayo inaad sii kartid cunuga qasab maaha wax tiro badan inuu cuno waxyar hadduu kuu cuno xataa okay waaye qasabkana ma u fiicno waxaa jira video uga hadlaayo cuntooyinka waalid qaladaadka ay sameeyaan oo inaa iska ilaalis loo baahan yahay hadhow su cunto diid uu kaagana qanin fahanteen soo marka cunug waxyar hadduu qaato way ku filan tahay cabitaan tookadan waa la siin karaa cunug markuu sanad soo gaaro cabitaan waa sii kartaa laakiin muhiimadda waxaa waa inaadan siin wax gasacaysan waa siisid cabitaanada oo freshka ee cambaha oranjada waxyaabaha fruitka freshka inaa u miirtid u shiidid sokortana aa ka ilaalisid sokor lacala xataa haddaad siinaysid waxyar aa ugu dartid because sokorta caafimaadkooda uma fiicno ilkoodana uma fiicno cuntada kalena way ka cishanaysaa haddaa ilmaha sokor badan aa bartid because wixii macaankii ay barteen ay rabaan waxaa kaloo jiro xilligan ilmaha in oo lagu dhiirigeliyo buwaagta markin oo cunug markaa buwaagta bartid asagoo yar hadhow buwaagta u jeclaanaa inaa qur-aanka u akhrisid habeenkaa seexinaysa u akhri maalintii u akhri inuu qur-aanka iyo buugga kala bartaa fiican waxaa kaloo jiro cunuga in la baro maxaa la dhahayay inuu keligiis wax cuni karo hooyooyinka badanaa soomaalida ilmaha intay yarin cuntada afka u gelgeliyaan asaga adoo siinaysid asna bar saxan inaa ugu shubtid meel nadiifa fariisisid cuntada inuu cuni karo haddaa bartid hadhow aad waxay kaa saaciidaysaa markaa ka maqanta cunugaagina wax kuu cuni karo oo aada ka walwalin marka koley waxaan isleeyahay badanaa intii loo baahnaa waa soo koobay wixii ka maqan oo isleedihiin waa ilaabay idinka commentiga hoos igula wadaaga qofkii su-aala qabta sidoo kale commentka ay u wadaagto waa mahadsantiin dhammaantiin soo dhawaada jazaakumullah khayr asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu